markaas ayay bilaabeen inay u socdaan dhinaca iyo buuraha. markii ay arkeen bahalo hortaagan, Fahmi wuxuu ku fikiray in waqti badan ay ku lumi doonaan haddii ay la dagaalamaan dhammaantooda. sidaas darteed wuxuu sixir ku sameeyey Faali, taas oo ka dhigtay inay dhex marto bahalada dhexdooda iyagoo si dhaqso leh ku gaareen buuraha. markuu hortooda ka soo muuqday masduula aad u weyn, Fahmi wuxuu isweydiiyey sida ay u kala goyn doonaan. laakiin ka hor intaysan waxba qabanin, masduulaagii ayaa bilaabay inuu soo kaco mar kale. Fahmi wuxuu fahmay in dhammaan qorshahoodii uu burburay. markay isku dayeen inay cararaan, Faali ayaa kooxdeeda ka soo horbooday, waxayna u duushay oo ay garaacday masduulaagii. masduulaagii wuxuu soo daayay neef sun ah. Fahmi wuxuu ka xanubay sunta inay sanka ka gasho, laakiin qiiqu wuxuu saameeyey Raphtalia. Faali waxay isku dayday inay masduulaaga ay disho oo waxay ka booday si ay uga fogaato weeraradiisa, laakiin Fahmi wuxuu go'aansaday inay ka baxsadaan halkaas, wuxuuna u yeeray Faali inay soo laabato. laakiin isla markaas masduulaagii ayaa liqay Faali, wuxuuna si degdeg ah u nuugay awoodeeda. Fahmi iyo Raphtalia waxay moodayeen in mar dambe aysan arki doonin Faali. markii masduulaagu uu sii daayay qiiq aad u fara badan, Fahmi wuxuu soo xusuustay maalintii ugu horeysay ee uu la kulmay Faali iyo sida ay isu beddeshay xaaladeeda maanta. wuxuu bilaabay inuu ka xanaaqo waxa dhacay, waxaana shaqaysay awoodda hubkiisa. gaashaankiisa ayaana helay awood culus oo ku salaysan xanaaqiisa. markuu isku dayay inuu masduulaaga uu la dagaalamo, masduulaagii ayaa ku dhuftay dhulka. Raphtalia waxay mooday inuu dhintay, laakiin Fahmi wuu soo kacay isagoo cagta masduulaaga kor u qaaday. awooddiisa ayaa sii kordhaysay, waxayna Raphtalia isku dayday inay joojiso, laakiin dabayshii xoogga ahayd ayaa kala tuurtay. Fahmi wuxuu sii daayay iftiin weyn oo dhulka ku dhuftay, qiiqana ka saaray. gaashaankiisu wuxuu noqday mid dab ku gubanaya. masduulaagii markuu isku dayay inuu ku dhufto dibkiisa, Fahmi wuxuu ku guulaystay inuu gubo. wuxuuna soo xusuustay xanuunkii fiyaamada ee lagu sameeyey, wuxuuna sii kordhiyey dabka gaashaankiisa isagoo diyaar u ahaa inuu masduulaaga uu gubo dhammaantiisa. laakiin markaas ayuu maqlay codka Raphtalia. markii miirkiisu uu soo noqday, wuxuu arkay iyada oo dhaawac ah oo miir beeshay. isaga oo cabsi iyo walbahaar ku jiro, wuxuu isku dayay inuu ku daweeyo awooddiisa sixirka ah, laakiin iyadu weli ma aysan soo toosin. masduulaagii ayaa markaas mar kale soo weeraray, laakiin gaashaankii Fahmi ayaa ka difaacay. laakiin Fahmi wuxuu ogaaday inuusan awoodin inuu isku mar uu Raphtalia badbaadiyo misena masduulaaga uu la dagaalamo. markaas masduulaagu wuxuu bilaabay inuu qayliyo, kadibna isla markiiba uu dhacay oo wuu miir beelay. Raphtalia ayaa soo toostay, laakiin waxay isweydiisay yaa masduulaaga dilay, laakiin Fahmi isaga xitaa ma oga. markaas Faali ayaa ka soo duushay caloosha masduulaaga iyagoo la yaaban inay weli nooshahay. waxay u sheegtay inay calooshiisa ka dhex cuntay, isla markaana waxay heshay dhagax buluug ah oo yaalay gudaha masduulaaga, laakiin dhagaxa hore ayuu caloosheeda ugu jiray. Raphtalia waxay bilowday inay aad u xanuunsato. Fahmi wuxuu u sheegay inay tahay in isla markiiba ay ku noqdaan tuulada, laakiin Raphtalia waxay ku adkaysatay in marka hore masduulaaga la gubo. habeenkii markay tuulada gaareen, dhakhtarku wuxuu isku dayay inuu lacag siiyo Fahmi si uu ugu mahadceliyo dilka masduulaaga, laakiin Fahmi wuxuu u sheegay inuu lacagta u isticmaalayo daaweynta Raphtalia sababtoo ah waxay kala muhiimsan tahay lacag kasta. dhakhtarku wuxuu u sheegay in Raphtalia ay qabto habaarka masduulaaga oo awood leh oo aanay awoodin inay daweeyaan. wuxuu siiyey Fahmi lacagtii mar kale isagoo leh waxay kuu noqon doontaa mid faa'iido leh. markii uu booqday Raphtalia, Fahmi wuxuu isweydiiyey sida ay uga soo kaban doonto cudurkan. Faali waxay siisay Fahmi dhagax kale oo ay ka heshay masduulaaga, wuxuuna ku dhajiyey gaashaankiisa si uu u helo awood cusub. laakiin isagoo ka xun in xanaaqiisa uu Raphtalia uu khatar geliyey, wuu ka raaligeliyey isagoo leh inay ahayd khalad in masduulaaga lala dagaalamo. laakiin Raphtalia waxay u sheegtay inay iyada ku liidatay dhinaca difaaca oo iyadu mas'uul ka tahay waxa dhacay. Faali waxay isku dayday inay qof kasta farxad geliso iyadoo leh aniga ayaa qorshaha qalday markii aan weerarayay masduulaaga. Fahmi wuxuu ku yidhi hadda waxaad tihiin kuwa ka xoog badan sidii hore, dagaalada waxaad kaga gudbi doontaan si wada jir ah. markii uu doonayay inuu baxo, Raphtalia waxay ku tiri aawa fadlan aniga ila seexo, waxaan rabaa inaan ku dareemo adigoo i ag jooga. laakiin Fahmi wuxuu u sheegay inaan loo baahnayn inuu sidaas sameeyo. maalmo kadib, Fahmi iyo kooxda waxay bilaabeen inay bahalo badan ay laayaan. markii uu ka murugooday in Raphtalia ay dagaalka ka qayb galayso isagoo og inay xanuunsan tahay, waxay tiri anigu waan jeclahay dagaalka, waxay iigu fududahay sida inaan caws jarayo camal. galabtii iyagoo keynta dhex socda, Fahmi wuxuu sheegay inay u laaban doonaan magaalada si loogu helo daawo. markaasay arkeen gabar yar oo dhinaca keynta joogta. markay shimbiraha arkeen Faali, way ka carareen. gabadhii waxay aragtay Fahmi, laakiin waxay iska dhigtay inuusan arkin, waxayna Faali ula hadashay si farxad leh iyada oo ku tiri iyadoo leh waxaan mar walba rabay inaan la kulmo qof ka mid ah dadkayga. Raphtalia waxay isweydiisay haddii gabadhu ay ka timid tuulada, laakiin Fahmi wuxuu ku yidhi waxay u badan tahay inay tahay gabar reer boqortooyo ka soo jeedo. gabadhii waxay u sheegtay in magaceedu yahay Malti. Fahmi wuxuu u sheegay Faali in uu isaga iyo Raphtalia ay u socdaan magaalada oo Faali ay tahay inay iska nasato. Faali aad bay ugu faraxday, waxayna isu beddeshay bini aadan ah. Malti aad bay ugu faraxday inay heshay saaxiib cusub. habeenkii Fahmi wuxuu bilaabay inuu dadka ku daweeyo dawooyinka uu sameeyo. habeenkii dambe isagoo dhaawaca Raphtalia u duubaya, Faali waxay u sheegtay inay Malti ahayd gabar yar oo ka luntay ilaaladii oo aan garanayn jidkeeda si ay ugu noqoto magaalada. markaas ayay gabadhii timid, waxayna ka codsatay inay u raacaan magaalada maadaama ay doonaysay inay la midowdo qoyskeeda. Fahmi ma uusan rabin inuu ka aqbalo, laakiin Malti waxay u sheegtay in ay tahay inay si degdeg ah u gaarto caasimadda maadaama arrin aad u muhiim ah ay tahay. isla markaana waxay ka ballan qaaday inay intuu doono oo lacag ah ay siin doonto. Fahmi wuxuu is yidhi haddii ay sidaas tahay, waxaan noqon karaa nin maalqabeen ah, laakiin wuxuu ka baqay in dhibaato soo gaarto haddii uu la socdo gabadh uu dhalay nin boqor ah. Faali waxay u sheegtay inuusan
gabadha uusan ka tegin. Raftaaliyana waxay tiri caawinteedu waa wax sax ah, sidaas darteed ugu dambayn Fahmi wuu aqbalay. Subaxdii xigtay Fahmi iyo gabdhaha waxay ka soo baxeen tuulada iyagoo bilaabaya safar cusub. Raftaaliya waxay ku adkaysatay xanuunkeeda inay ku sii socoto. Markay magaalada si qarsoodi ah ku soo galeen, Fahmi wuxuu u sheegay Faali inay maalti gurigeeda ay geyso kadibna dib ugu soo qaado lacagtii ay ka ballan qaaday. Kadib Fahmi iyo Raftaaliya waxay aadeen goob dhismo ah si ay u helaan daawo ka saarta xanuunka Raftaaliya. Fahmi wuxuu arkay in calaamadii gaashaankiisu aysan saarnayn dhismaha, wuxuuna gartay inay dadka goobtan jooga ay aad u necab yihiin. Markay gudaha galeen, odaygii weynaa ayaa si diiran u soo dhaweeyay isagoo sheegay inuu arkay dagaalkii uu la galay Motoyaasa gudaha qasriga, isla markaana uu yahay geesi aan la jebin karin. Laakiin Fahmi ma uusan danaynin ammaantaas badan, wuxuu si toos ah u weydiistay biyaha ugu awoodda badan, kuwaas oo ka saaraya cudurka saaxiibtiisa haya. Oday kale ayaa yiri wax wanaagsan lacag la'aan laguma helo, oo wuxuu u sheegay inuu bixinayo lacag. Laakiin markii Fahmi uu adeegsaday xirfadiisa qiimeynta, wuxuu ogaaday inay ka iibinayaan biyo aan tayo lahayn. Wuxuu ku yiri idinka iska cabadoqomo ayaa tihiin. Odaygii ayaa ku amray in la keeno biyihii dhabta ahaa, wuxuuna ka raaligeliyey khaladkii dhacay. Markii Fahmi uu xaqiijiyey inay yihiin kuwa saxda ah, wuu soo qaatay oo wuu ka tegey. Markay banaanka yimaadeen, hal askari ayaa u soo ordaya oo u yeeraya. Fahmi oo aan rabin cid magaalada ka tirsan inay la soo xiriirto, wuxuu bilaabay inuu ordo isaga iyo Raftaaliya. Waxay ku dhunteen dariiq ciriiri ah si ay u badbaadiyaan Raftaaliya. Fahmi wuxuu soo jeediyey inay kala tagaan, wuxuuna go'aansaday inuu askariga ku jeediyo jiho kale. Isagoo daalla dhacaya ayuu isku dayay inuu nasto, laakiin Motoyaasa ayaa soo duulay isagoo warankiisa kor u taagaya, wuxuuna ku dhawaaday inuu ku dhufto. Fahmi wuxuu is yiri ninkan miyuu waalan yahay, laakiin Motoyaasa wuxuu u sheegay inuu u yimid inuu xoreeyo gabar kale oo adoon ah. Fahmi wuxuu iskaga difaacay waranka, wuxuuna ku yiri noloshaada u noqo. Raftaaliya weligeed saaxiibtaada ma noqon doonto, laakiin Motoyaasa wuxuu yiri inuusan u imaan Raftaaliya darteeda ee uu u imid inuu arko Faali. Markuu ogaaday in qofka uu la jeedo inay tahay Faali, wuxuu bilaabay inuu u sheego inay tahay gabadh qurux badan oo uu doonayo inuu ka dhigto xaaskiisa, isagoo xitaa sheegtay inay noqon doonto xaaskiisa labaad. Fahmi wuxuu eegay qalabka ilaaliya caloosha Motoyaasa, wuxuuna is yiri sidee geesi uu iskugu dayi karaa isaga oo qalabkan jilicsan wata. Wuxuu soo xasuustay xanuunkiisii hore. Motoyaasa wuxuu bilaabay inuu soo weeraro, laakiin Fahmi ayaa iska difaacay isagoo burburiyey meel lagu ganacsado. Dadku waxay bilaabeen inay ku oriyaan oo ay dhahaan doqomo ayaa tihiin, qaar kalena waxay difaacayeen Motoyaasa, balse dagaal baa ka bilowday halkaas. Markii Motoyaasa uu mar kale waranka kula soo booday, hal askari ayaa istaagay jidkiisa, wuxuuna ka hor joogsaday inuu ka guulaysto. Laakiin markaas ayaa Mayn oo ah walaasha maalti ay timid, waxayna amartay in ciidamada lagala wareego hubka, waxayna soo bandhigtay amar boqortooyo. Waxay ku amartay Fahmi iyo Motoyaasa inay bilaabaan abaabul cusub oo dagaal ah. Laakiin maalti ayaa soo dhex gashay, waxayna tiri ma ogolaanayso dagaal inuu ka dhaco magaalada dhexdeeda. Markaas Fahmi wuxuu ogaaday in maalti ay tahay walaasha Mayn. Faali iyo Raftaaliya ayaa soo gaaray iyagoo yaaban sababta Motoyaasa uu weli ugu waalan yahay iyada. Motoyaasa mar kale wuxuu isku dayay inuu Faali ku soo jiito hadallo macaan, wuxuuna u ballan qaaday inay noqon doonto amiirad. Laakiin Faali waxay u sheegtay inay ka jeceshahay intuu isaga guursan lahaa inuu gaari uu dhufto. Motoyaasa wuxuu yiri Fahmi ayaa maskaxda ka bedelay. Markuu reerkii Faali uu aflagaadeeyay, Faali way carootay, waxay isu bedeshay shimbir aad u weyn, waxayna ku dhufatay meel u dhow caloosha Motoyaasa isagoo mar kale guuldaraystay. Maalti markaas ayay dib u soo muuqatay, waxayna Fahmi ka codsatay inay si gaar ah u wada hadlaan. Laakiin Fahmi wuxuu ka daalay wejiyadooda. Fiidkii markay dukaanka Smith ku sugnaayeen, Fahmi wuxuu weydiiyey maalti waxay dhab ahaantii tahay. Waxay tiri waxaan ahay madaxda labaad ee boqortooyada, waxaana ka horeyso walaasheeda Mayra in loo doorto boqorada mustaqbalka. Markaas askari ayaa ku yiri boqorku uu ku sugayaa, sidaas ayay maalti u baxday. Faali aad bay uga murugootay inay saaxiibteedii yarayd ay lumisay. Maalti markay sii baxaysay, waxay soo xasuusatay in hooyadeed boqorada ay u dirtay si ay bilar sharaf u siiso Fahmi, maxaa yeelay boqorka ayaa Fahmi u arkan in la nacay inuu yahay. Dukaanka gudihiisa, Faali waxay weydiisay Fahmi sababta uu u diiday inuu la hadlo maalti. Fahmi wuxuu u sheegay in arrintu tahay mid dadka waaweyn oo kaliya loogu talagalay, ayna tahay inaysan mar dambe la ciyaarin maalti. Faali oo ooynaysa ayaa dukaanka ka carartay, laakiin waxay dib u soo laabatay iyadoo tiri rag ayaa ku yimid. Fahmi wuxuu gartay inay yihiin raggii hore ee uu ka soo cararay oo ay weheliyaan rag kale uusan garanaynin. Fahmi wuxuu weydiiyey sababta ay ula socdeen oo ay u daba socdeen ilaa iyo hadda. Hogaamiyaha askarta ayaa u sheegay in ay rabaan inay ku biiraan kooxdiisa oo ay la dagaalamaan markay soo noqdaan mowjadaha bahalada. Fahmi wuxuu ku yiri ha idaba soconina oo haddii mowjaduhu yimaadaan idinku keligiin la dagaalama. Laakiin askari kale ayaa sheegay in ay ka yimaadeen tuuladii uu badbaadiyey markii hore oo in qoysaskiisa la badbaadiyey ay ku dhiirigelisay misana geesinimo ay siisay. Laakiin Fahmi ma uusan saameynin hadalkaas, wuxuuna ku yiri waxaan idinka aqbali karaa kooxda inaad ku soo biirtaan haddii aad iibsataan shaygan duuga ah ee aan jeclaysan, waana mid qaali ah, qiimihiisa askartiina way aqbaleen, iyagoo u sheegay inay lacag helayaan xataa haddii ay xubnahooda ay iibiyaan. Fiidkii kadib markii ay askartu baxeen, Fahmi wuxuu u sheegay farsamayaqaan Smith in uu arkay calaamad cusub oo ku taala xaaladda ay ku sugan yihiin Raftaaliya iyo Faali. Smith wuxuu u sheegay in ay iyaga keligooda gaar u noqdeen in loo kordhiyo awoodooda, taas oo macnaheedu yahay in xadka levelkooda kor loo qaadi karo. Laakiin kor u qaadistu waxay ka dhiri kartaa keliya dhismihii ay odayaasha ay joogeen, maxaa yeelay waxa u yaal saacad gaar ah. Subaxdii xigtay ayay goobtii tageen. Fahmi wuxuu u sheegay Raftaaliya inay go'aankeeda ay gaarto. Wuxuu u sheegay in mustaqbalka uu dib ugu laaban doono dunidiisii markii mowjadaha ay dhammaadaan, taasoo Raftaaliya ka naxisay, maxaa yeelay waxay
waxay ka cabsatay inuusan mar dambe arki doonin. Markay gudaha u galeen waxay ogaadeen in lacagta lagu sameeyo kor u qaadista awoodda ay aad u badan tahay. Fahmi wuxuu is yiri haddii aan lacag badan yeesho mucjisooyin badan ayaan heli lahaa. Wuu ku dhiiraday wuxuuna rabay inuu bixiyo lacagta si Raftalia loogu kordhiyo awoodeeda, laakiin haweeney ka tirsan kooxdii ayaa tiri waxaan amray in kooxda Fahmi aan loo kordhinin awoodda. Amarkaasna waxaa bixiyay boqorka laftiisa. Nofumi aad ayuu ugu carooday lacagtiisii ayuuna dib u soo qaatay. Saacado kadib waxay tageen teendada ganacsadaha adoomaha. Ganacsaduhu wuxuu u sheegay inuusan awoodin inuu sameeyo kor u qaadis awood, laakiin wadan kale waxaa ku yaal saacad kale oo samayn karta midaas. Safarkuna wuxuu qaadan doonaa toddobaadyo iyadoo markab lagu socdo, laakiin mawjadaha dhawaan ayay imanayaan, sidaas darteed waxay go'aansadeen inay shaqeeyaan intaan la gaarin waqtigaas. Fahmi wuxuu rabay inuu tijaabiyo cidiyaha cusub ee Fali, sidaas darteed ganacsaduhu wuxuu u diray biyo-mareenka magaalada. Halkaas waxay kula kulmeen bahal u eg yaxaas weyn. Fahmi wuxuu iska difaacay weerarkiisa. Raftalia waxay ka jartay dibkiisa, Falina waxay ku dhufatay oo ay u ogolaatay Raftalia inay disho. Waxay ogaadeen in hubkooda cusub uu runtii yahay mid aad u fiican. Habeenkii Fahmi wuxuu mar labaad nadiifinayay oo uu duubayay dhaawaca Raftalia. Waxay rajaynayeen inay bogsato ka hor intaan mawjadaha aysan imaanin. Raftalia waxay ka baqday in marka uu Fahmi dunidiisa dib ugu laabto inay iyadu mar kale noqon doonto qof aan qiimo lahayn. Waxay rabtay inay u raacdo dunidiisa, laakiin Fahmi xataa dunidiisa cidna qiimo uma aysan yeelin, waxa uu muhiim ku ahaa kaliya adduunkan. Markay isku dayeen inay ka wada hadlaan, Fali ayaa soo kacday, waxayna mooday inay ku jiraan wax kale, taas oo keentay dood yar iyo qaylo dhex martay. Fahmi wuxuu u sheegay in uu daalay. Maalmo kadib waxay gaareen magaalo burburtay. Wax yar oo kaliya oo dad ah ayaana ku noolaa. Dadku waxay u sheegeen in dagaal uu ka dhacay. Koox safaray ah ayaa doonaysay inay tuuga magaalada ka qaado xukunka, laakiin kadib magaalada way sii xumaatay. Fahmi wuxuu gartay in qofka kooxda hogaaminayay uu ahaa Suki. Markii ay maqaayad galeen, Fahmi wuxuu arkay Suki iyo Rain. Dadkoodii waxay sheegeen in Suki loo dirsaday inuu dilo wakiilkaasoo tuulo maamulayay oo shacabka canshuur badan ka qaaday. Fahmi wuxuu ku qoslay Suki isagoo ka fikiraya in ay yihiin kuwa aan waxba fahmaynin inay yihiin. Fahmi wuxuu Suki u sheegay in ficiladoodii ay dadka ku sii xumeeyeen noloshooda. Rainna wuxuu u sheegay inuu sababay cudur ka dhashay meydka masduulaaga oo uusan gubin markii uu dilay kadib. Fahmi ma uusan rabin inuu hadal badan uu sii wado, wuuna iska baxay. Fiidkii markii la gaaray, askartii dhalinyarada ahayd ayaa dib u soo noqotay, waxayna sheegeen inay heleen lacagtii uu codsaday. Markaas ayuu Fahmi kooxda ku soo daray isagoo u sheegay in haddii ay sirtiisa ay faafiyaan uu isla markiiba ka burin doono kooxda. 24 saacadood ka hor mawjadaha soo socda waxay bilaabeen diyaar garow baahsan. Fahmi wuxuu soo aruursaday dawooyin badan, wuxuuna Raftalia uu siiyey jijin uu sameeyey. Jijinta waxaa ku jiray sixir kordhinaya tamarta awoodeeda. Raftalia waxay sheegtay inay aad uga heshay hadiyadiisa. Markii Fali ay masayrtay oo ay codsaday hadiyadeeda in la siiyo ayadana, Fahmi wuxuu u xiray biinka timaha oo gaar ah isaga oo u sheegay inuu ka dhigi doono mid dhaqsi badan. Markay faraxday waxay isu beddeshay shimbirtii weynayd. Fahmina wuxuu ku yiri hadiyadan aad baad ugu habboon tahay. Markaas ayuu waqtigii dagaalka uu bilaabmay, iyaguna hal mar ayay meesha ka soo guureen. Markay soo gaareen tuulada kale waxay arkeen in mawjadihii horey ay u soo weerareen. Laba askari ayaa ku guuleystay in ay hal makhluuq ay dilaan ka hor intuusan dhammaynin qof deegaanka ka mid ah. Iyaga oo u maleeyay in dagaalka uu dhammaaday, masduula weyn ayaa soo baxay oo isku dayay inuu laayo dadkoo dhan, laakiin waxaa laga dhigay mid daciif ah. Raftalia ayaa jarjartay isagoo dhan. Falina waxay ku garaacday iyadoo cagaheeda adeegsanaysa, isla markiina way dileen. Markaas ayay arkeen haweeney waayeel ah oo sidoo kale garaacaysa bahalo kale. Markay dhamaysay waxay u mahadcelisay Fahmi, wuxuuna soo xusuustay inuu mar uu daaweeyey isagoo siiyey daawo aad u fiican. Iyadoo bahalo kale garaacaysa waxay u sheegtay in abaalkiisa aysan gudi karin. Fahmi wuxuu isweydiiyey inta ay weli sii dagaalami doonaan. Markaas madaxii askarta wuxuu kula taliyey inay helaan hab ay mawjadaha ku joojiyaan ka hor intaan tuuladu gebi ahaanba aysan burburin. Fahmi iyo gabdhaha waxay u ordeen dhanka albaabada mawjadaha, waxayna arkeen doon. Isla waqtigaas Suki iyo kooxdiisa waxay dilayeen bahladii soo haray. Markuu Fahmi uu weydiiyey meesha kale ee dagaalka uu ka socdo, Suki ayaa u sheegay inay ku jiraan markabkan si gaar ah loo leeyahay. Fali ayaa isla markiiba soo duushay oo kor u qaaday si ay u arkaan xaaladda meesha ka socota. Isla waqtigaas Rain ayaa soo muuqday, wuxuuna soo kacay mar kale oo dagaal ayuu bilaabay. Rain iyo Motoyasa markay gudaha u soo galeen, Rain wuxuu soo jeediyey inay marka hore ay dilaan kabtanka. Inta aysan ogaanin dadka kale, Fahmi ayaa yimid, laakiin Motoyasa ma uusan rabin oo wuxuu ku yiri iska bax oo meeshan yaanan kugu arkin. Fahmi wuxuu u sheegay inay kaliya joojin karaan bahalada soo laalaabanaya haddii ay joojiyaan mawjadaha awoodooda. Markaas ayuu kabtankii uu difaacay oo dib ayuu u celiyey. Kadibna Kraken ayaa Fahmi soo weeraray, laakiin Fahmi wuu iska difaacay, wuxuuna ku canaantay inay joojiyaan isqabqabsiga. Fahmi wuxuu arkay hooska kabtanka zombiga, wuxuuna u sheegay Raftalia inay isticmaasho sixirka iftiinka ah. Markii iftiinku uu soo baxay, wuxuu u sheegay inay ku dhufato, iyaduna way ku dhufatay. Ruux dab ah ayaa cirka u kacay. Rain isaguna wuxuu dhuftay laad kale. Ruuxyo badan ayaa kor u soo kacay markaana, waxayna isu bedeleen hal bahal oo aad u weyn. Rain, Suki iyo Motoyasa waxay qaadeen weerar adag, laakiin bahalku waxba ma soo gaarin. Fahmi wuxuu u sheegay Fali inay isticmaasho sixirka dabaylaha, waxayna ku tuurtay duufaan xoogan, laakiin makhluuqii weli waxba kama dhibin isku daygooda. Bahalku wuxuu diyaariyey weerar weyn. Rain iyo Motoyasa waxay u ordeen si ay u joojiyaan, laakiin Fahmi wuxuu ku yiri waa fikrad aad u xun. Markaas wuxuu difaacay Raftalia iyo Fali. Markay u muuqato in dhammaantood la baabiin rabo, Fali waxay soo saartay awood cusub oo ay bahalka dhinac walba kaga garaacdo, taasoo ka dhigtay inuu daciifo bahalkii. Markaas Raftalia waxay
waxay isku dayday inay dhaawacdo Fali iyaduna kama harin. Fahmi wuxuu arkay in nolosha bahalku ay hoos u dhacayso, wuxuuna isyiri laga yaabee inay ku guulaysan karaan arrinkan, laakiin wuxuu ka cabsaday tuuladu inay burburto. Niyad jab la'aan Fahmi wuxuu u sheegay Raftalia inuu isticmaali doono silsilada gaashaankiisa. Raftalia waxay tiri iyadu waa seeftiisa taasoo diyaar u ah inay ula socoto meel kasta. Fahmi wuxuu soo saaray gaashaankiisa oo awood ka buuxda, iftiinkuna wuxuu bilaabay inuu qabsado hareerihiisa. Gudaha maskaxdiisana Fahmi wuxuu ogaaday in awoodda masaskii buuraha ee hore u jiri jiray ay weli ku nool yihiin gaashaankiisa.